Ma waxaad rabtaa in aad noqoto YouTuber? Hambalyo, aad ayay u fududahay in la noqdo YouTuber, laakiin haddana way adag tahay inaad noqoto YouTuber haddii aadan sameynin qodobada aan kuugu sheegi doono muuqaalkan. Nala joog ilaa dhammaadka muuqaalka. Haddaba aan bilowno qodobada ugu waaweyn ee kaa caawin karo in aad noqoto YouTuber dhammaystiran sanadan 2025. Qodobka koowaad, raadinta fikrad. Waana tallaabada ugu adag ee uu wajaho YouTuber walbo. Way sahlan tahay inaad hesho fikrad, laakiin way adag tahay inaad hesho fikrad ka gadanta dadka kugu xiran. Maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay fikradda aad raadinayso in ay ku saleysnaato waxa channelkaaga uu ka hadlo. Haddii aadan diiradda saarin in aad soo hesho fikradda channelkaaga waxa uu ka hadlo, ma yeelanayo muuqaalkaaga xiiso oona ma noqon doono muuqaal dadku ay dhammaystirtaan ilaa dhammaadka. Waxaa loo baahan yahay inaad ka dhigto fikraddaada mid xiiso leh oona qofka ku sababi karta in uu daawado ilaa dhammaadka muuqaalka. Sida aan filayana qodobkani waa qodobka ugu adag. Qodobka labaad, duubidda codka iyo muuqaalka. Marka aad fikradda hesho, waxaa loo baahan yahay haddana inaad sameyso muuqaalkii iyo codkii inaad duubto. Haddii aad tahay qof faceless YouTube channel ah iyo haddii aad tahayba qof face YouTube channel ah oo YouTube-ka si caadi ah usoo fariisto, waxaa loo baahan yahay in aad marka hore muuqaalka iyo codka iyo wax walbaba aad sameyso. Fikraddii aad soo heshayna u beddesho muuqaal. Mana ahan mid sahlan. Haddii aan tusaale idiin soo qaato, YouTuberaddan wad garanaysaan oo waxay soo dhigtay barteeda community-ga iyadoo soo dhigtay sawirkan iyo qoraalkan ay kusoo dulqortay. Middaani waxay ku tusaysaa in aysan sahlanayn in muuqaal la edit gareeyo, la soo publish gareeyo, fikraddiina muuqaal loo beddelo, welibana la edit gareeyo. Middaasi mana ahan mid sahlan. Qodobka saddexaad, maxaan u noqonayaa YouTuber? Dadka inta badan waxay kuu sheegayaan saddexdan shay. Waa riyadayda inaan noqdo YouTuber. 2, waxaan rabaa inaan lacag ka sameeyo YouTube-ka. 3, waxaan rabaa inaan aqoontayda dadka ugu faa'iideeyo. Saddexdan shayba way jiraan. Haddii aan tusaale idiin soo qaato ama midda koowaad aan ka hadalno, waa riyadayda inaan noqdo YouTuber. Way dhici kartaa, way noqon kartaa riyadaada. Maxaa yeelay dalka Mareykanka sanadadii la soo dhaafay dhalinyarada inta badan waxay jeclaysteen inay noqdaan content creators. Way dhici kartaa inay riyadaada noqoto, mana ahan wax cusub oo maxaa yeelay sanadadii la soo dhaafayba social media iyo content creation waxay noqdeen waxyaabo aad loo xiiseeyo. Midda labaad, waxaan rabaa inaan lacag ka sameeyo. Waad ka sameyn kartaa lacag, laakiin ma ahan sida aad filayso ama uu ku guda ballaaran yahay YouTube-ka. Sida aad filayso inaad lacag u sameyso, waxaa loo baahan yahay inaad la imaado dadaal iyo joogteyn fara badan. Haddii aad intaas la imaadana, waan hubaa inaad ka sameynayso YouTube-ka. Midda saddexaad, waxaan rabaa inaan aqoontayda dadka ugu faa'iideeyo. Sanadadii hore social media ama in wax la soo gudbiyaba waxay qaas u ahayd dad gooni ah sida wariyaasha. Laakiin sanadadan qof walbaba wuu noqon karaa content creator amaba qof dadka wax u gudbiyo. YouTube-kana waa meesha ugu weyn ee aqoonta dadka kale loogu faa'iideeyo. Haddii aad tahay qof wax xirfad garanaya, waa muhiim ama sameyn kartaa inaad xirfadaada dadka la wadaagto oo aad halkaasi ka noqoto content creator amaba qof macallin ka noqda YouTube-ka oo way dhici kartaa. Qodobadeena maanta, muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. Asxaabta qaaliga ah waxay noo ballan ah muuqaalkan muuqaalka xiga oo kan ka xiisa badan insha Allah.